madaxa hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Guillermo Betoki ayaa sheegay in aanu marna dareemin waligiis caalwaa la mid ah horumar la'aanta xagga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. waraysi ay BBC-du la yeelatay ayuu Mr. Betoki ku sheegay in ay wali khatar weyn ku tahay shaqaalaha hay'adda qaxootiga ugu qaabilsan Soomaaliya UNHCR in ay tagaan oo ay ka shaqeeyaan gudaha dalka oo sidaas darteed ay hadda ka shaqeeyaan Nairobi laakiin haddana ay sii wadi doonaan howlahooda samafalka ee Soomaaliya. Mr. Betoki oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada London maanta ayaa waxaa ka qayb galay wariye Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo warbixintan inooga diyaariyay. Those who have stayed are those who cannot move, those who are the most vulnerable ones and who have some kind of madaxa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee dalka Soomaaliya Guillermo Betoki oo xaruntiisu ay tahay magaalada Nairobi ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay xafiiska ay hay'adda UNHCR ku leedahay magaalada London waxaana uu uga hadlay xaaladda bani'aadanimo ee ka jirta dalka Soomaaliya gaar ahaan dadka ku barakacay dagaalada ka socda Soomaaliya oo uu sheegay inay kor u dhaafay 1 milyan oo qof. Betoki waxa uu yiri in kastoo xaaladdu ay tahay mid ka sii daraysa haddana waxaa jirta in sanadkii 2007 ay ku barakaceen magaalada Muqdisho oo kaliya dad gaaraya 700,000 kuwaasi oo ka cararay dagaaladii xoogganaa ee u dhaxeeyay kooxaha iska caabinta iyo dawladda ku meel gaarka oo gargaar military ka helaysay ciidanka Ethiopia. waxaa kaloo jira dad gaaraya 200,000 oo iyana u barakacay dhanka waqooyi ee Soomaaliya. hay-addu waxa ay sheegtay in ay jiraan dad horay u barakacay dagaaladii Soomaaliya ka dhacay wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe sanadkii 1991 kuwaasi oo gaaraya 400,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah. dad gaaraya 200,000 oo ka mid ah kuwii ka barakacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa salka dhigtay inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho iyo Afgooye kuwaasi oo ay soo food saartay raashin yari iyo daryeel la'aan xooggan. hay-adda UNHCR ayaa gargaar waxa ay gaarsiisay dad gaaraya 90,000 oo ka mid ah dadkaasi intii u dhaxaysay bilihii May iyo December ee sanadkii tagay iyadoo ay jirtay xaalad ammaan xumo ah oo haysatay shaqaalaha hay-adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya. waxa hay-addu ay xustay in ay ku dadaalayaan sidii ay u gargaari lahaayeen dadka dhibaataysan walow ay jiraan caqabado ku horgudboon howlaha ay ka wadaan dalka Soomaaliya taasi oo sii murjinaysa mashaqada bani'aadanimo ee ka jirta dalka. mar uu ka hadlayay dalka Soomaaliya xaaladiisa bani'aadanimo ayaa waxa uu yiri So the situation in Somalia, I would say, is today very severe. It has been humanitarian emergency in the world today, even worse than Darfur, although Darfur... xaalka Soomaaliya waxaan oran karaa waa mid aad u liita. waxaa dalka Soomaaliya ka jirta xaalad bani'aadanimo tii ugu xumayd ee caalamka maanta oo waxa ay ka daran tahay xataa Darfur. inkastoo Darfur ay ku barakaceen tiro aad u badan laakiin marka la eego waxbarasho la'aanta iyo waxyaabaha daruuriga ah oo aysan haysanin dadka Soomaaliya ku barakacay ayaa waxa ay tahay tan ka dhigtay Soomaaliya mid ka liidata xaalka gobolka Darfur. mar aan wax ka weydiiyey sida ay muhiim u tahay in loo helo wada hadal mar haddii ay aaminsan yihiin kooxaha mucaaradka ku ah dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya in wax wada hadal aanay la gelayn dawladda ku meel gaarka inta ciidamada Ethiopia ay dalka joogaan taasina ay xataa sabab u tahay dadka inta badan ku barakacay dalka ayaa waxa uu yiri Yeah, I think that everybody agrees on the fact that any political dialogue will require the withdrawal of the Ethiopian troops. And one of the things that qof walba waa uu ogol yahay in wada hadal siyaasadeed la gaari karo marka ay dalka ka baxaan ciidanka Ethiopia. mid ka mid ah waxyaabaha aan malaynaya ayaa ah in dad badan oo Soomaali ah sida xaqiiqda ay u arkaan in dawladda ku meel gaarku ay casuumaad u fidisay ciidanka Ethiopia in ay dalka soo galaan waxaana ay u arkaan Ethiopia dal in badan cadow ku ahaa Soomaaliya. sidaas daraadeed waa dhab in ay iska caddahay in aan la gaari karayn wada hadal siyaasadeed inta ciidanka Ethiopia ay dalka sii joogaan. haddaba si loo helo in ciidanka Ethiopia ay dalka ka baxaan waa in aynu ku tallaabsannaa dhowr arrimood oo ay muhiim tahay sidii lagu gaari lahaa. waxaa ka mid ah in la helo ciidamo caalami ah oo awood u yeesha ama ammaan u keeni kara dadka rayidka ah
sida uu sheegay ra'iisul wasaare Mele Zanaawi haddii ciidanka Itoobiya ay dalka ka baxaan xilligani waxaa dalka Soomaaliya uu dib ugu noqonayaa rabshado waa in la helaa dariiqad looga bixi karo arrinka Soomaaliya sidii ciidanka Itoobiya dalka looga saari lahaa xilligan waxaa midowga Afrika ay ugu deeqeen dalka Soomaaliya ciidamo nabad ilaalineed hase yeeshee 8,000 oo ciidamadii loogu talagalay Soomaaliya waxaa ka jooga oo kaliya 1,600 oo ciidanka Uganda ah oo haatan ay u muuqato inaanay dalka ku filnayn iyadoo sidoo kalena ay dalka joogaan 100 ka tirsan ciidanka dalka Burundi waxaana loo baahan yahay in si looga dhabeeyo xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya la helo ciidamo ammaanka soo celiya oo si wax ku ool ah wax uga qaban kara xaaladda ammaan darro ee ka jirta Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada London oo maanta ka qayb galay shirkaasi Israa'iil oo ay qabatay hay'adda UNHCR madaxeeda Soomaaliya ugu qaabilsan oo warbixintaasi inoo soo koobayay